Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idin soo gudbinaynaa dhacdo cajiib ah oo ka dhacday dalka Turkiga. Taariikhdu markii ay ahayd 1999 magaalo ku taala dalka Turkiga ee lagu magacaabay Izmir ayaa waxa ka dhacay dhul gariir aad u weyn oo lagu qiyaasay cabirkiisa 7.6 wuxuuna sababay dhimasho in ka badan 1700 ruux, 10,000 oo qofna halka ayaa lagu waayay. in ku dhow nus milyan waxay noqdeen hooy la'aan. inkastoo dhul gariirkani waqtigiisii yaraa ayaa haddana waxaa la yaabay sida uu wax badan u baabi'iyay. waxaa jiray saldhig militariya oo lagu diyaarinayay xaflad qalin jebin oo loo qabanayay dhalinyaro u dhalatay dalka Turkiga kuwaasoo ka soo qalin jebiyay tababarka ciidanka badda, ayadoona la doonayay markaa in halkaa loo guddoonsiiyo shahaadooyin. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socdo dalka Israa'iil iyo sidoo kale dalka Mareykanka, ayadoona halkaa lagu diyaariyay qamri iyo naago u haysa oo laga keenay dalka Israa'iil. xafladda ayaa waxay bilaabatay xilli 3 saac waqtiga Turkiga waxayna socotay ilaa habeen barkii. markii shahaadooyinkii loo qeybiyay dhalinyaradii halkaa ka soo qalin jebisay ayaa waxaa bilowday muusigii iyo qamri cabkii. ayada oo hawshii socoto ayaa jenaraal ka mid ah ciidanka Turkiga u yeeray nin sarkaal ah, wuxuuna ku yiri waxaad ii keentaa kitaabka Quraanka. ninkii sarkaalka ah ayaa kitaabkii u keenay, markaasuu akhriyay aayada ka mid ah Quraanka. kadib jenaraalkii ayaa ka qaaday, markaasuu kitaabkii Quraanka jeexjeexay wuxuuna ku tuuray naagii heysay hoostooda. wuxuuna yiri isaga oo kibir ka muuqda, aaway axadkii kitaabkan soo dejiyay oona yiri kitaabka inaga ayaa soo dejinay, inaga ayaan xafideyno, aaway muu xafido kitaabkiisa. ninkii sarkaalka ah aad ayuu xumaaday, wuxuuna ahaa nin iimaan ka buuxo. markii uu xaaladda arkay isla markaana uu awood u yeelan waayay inuu wax ka qabto ayuu goobtii isaga soo tagay. xafladii markii socotay xilli 9 saac iyo 1 daqiiqo ah ayaa waxaa isbedelay jawigii, wuxuuna noqday jawi kalarkiisa bedelan yahay. waxaana isla markiiba kala dhambalmay baddii, waxaana soo baxay dab aad u holcayo, waxaana la socday qarax aad u weyn. hal mar ayaa dhammaan wixii halkaa joogay ciidankii, naagihii heysayay iyo alaabtoodiiba dhulka lala jaray. jawigii daqiiqado kadib wuxuu noqday wax aan la maqal oo aan la arag, waaba iyadoo meesha weligeed lagu noolaanin. maalinkii xigay ayaa waxaa la keenay niman khubaro ah oo la doonayay inay meesha ogaadaan wax ka dhacay. meeshii ay yimaadeen waxayna bilaabeen baaris. waxba way ka waayeen meeshii, kaliya waxay ku arkeen meeshii ninkii janaalka ahaa xafiiskiisa oo suran magaciisa kaliya. wax ka badbaadi ma jirin ilaa ninkii sarkaalka ahaa ee ka soo cararay mooyaane. markii uu dhul gariirkan ka dhacay Turkiga, dadkii waxay bilaabeen inay masaajidda soo buuxinayaan, allabarigana badinayaan. imaamka masjidka ayaa mar waliba dadka wuxuu ku dul akhrinayay aayadda Quraanka oo ka hadlaysa dadka markii loo nicmeeyo oo ay kibraan waxa u dambaynayo. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. sidoo kale imaamku wuxuu ku celcelinayay diintan waxa iskale alle, isaga ayaana xafidayo ee ha ka cabsanina.